Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Dhegeystayaal daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka xulka siyaasadda ee janalka Warcadda Media. Waa anagoo idiin soo gudbin doona mawduucyo la xiriira arrimaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada iyo guud ahaan dhacdooyinka caalamka. Qodobada barnaamijka aan idinku hayno waxaa ka mid ah magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baa sida ku sheegay waxaa ka socday siyaasadeed iyo sidoo kale dagaalo xooggan oo u dhexeeyay sarkaal ka tirsan ciidamada militariga qaybta lixdanaad ee xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale ciidamada ka tirsan maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo hogaaminayo madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdi Gareen. dagaalkaas ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac balle waxaana uu bilowday saacadii markii salaada subax kadib waxaana guud ahaan hawada laga saaray isgaarsiinta kala duwan ee magaalada ka shaqeyn jirtay. taasi ayaa adkeysay in dadka ku nool meelaha ka baxsan magaalada Baydhabo inay si toos ah dhacdooyinka markaa ka socday magaalada هولكي أو وزارة العدالة كده جرى هولكي شركة أو ولا وزير دلوقتي كمركز كويان لك الشراي وأكو سيبار جايتان أنتوا أكو الباب كله كجراي وكراسي إذا ماذا مركزي ويرك لو قارئ كواسي وستوس ومركزنا وسميت السنة دولة فرنسا الصومالية سكال كان نقوم الرحمن نشو أيها كم سلاكيشي وجامعي إذا ماذا سيكون قالمي magaalada Baydhabo oo markaasi dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya meel gaar u ah. dagaalka waxaa la sheegay in dhowr qof oo ka tirsan ciidamada labada dhinac dagaalamay ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waxaana la sheegay in goobta ay deganaayeen ciidamada ka tirsan militariga Soomaaliya gaar ahaan qaybta lixdanaad ay markaasi la wareegtay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya sida uu sheegay wasiirka wasaaradda warfaafinta dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Ibraahim Bilaal oo markaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Baydhabo markii sida uu sheegay ay soo gabagabeeyeen howlgalkaasi ay tilmaameen inay kula dagaalamayeen ciidamadan ka tirsan militariga Soomaaliya oo ka soo horjeeday dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. ilaa hadda si dhab ah looma oga sababaha keenay dagaal laba maalin qaatay inuu ka dhaco magaalada Baydhabo oo geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. wararka qaar ayaa sheegay in saraakiishan ay ka amar qaadanayeen ama si toos ah xiriir la lahaayeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya inkastoo aan markaasi aan cadeymo rasmi ah u haynin oo ku aadan cid ay si toos ah u amar qaataan. sidoo kale wararka qaar ayaa sheegay in uu la xiriiro dagaalkani arrimaha markaasi ka jiray magaalada Baydhabo. marka sida hadda ay xaaladdu tahay goobjoogyaal aan la hadalnay waxay inoo sheegeen in hadda ay xaaladdu tahay mid aad u degan kadib markii howlgalkaasi uu soo gabagaboobay. waxaa la arkayay gawaarida ciidamada dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya oo si aad ah u isticmaalaya wadooyinka magaalada waxaana la xiray wadooyinkii ugu muhiimsan ee magaalada. dagaalka goobta oo ka dhacay ayaan ka fogeyn madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo fadhigiisu yahay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdi Gareen. waxaana la sheegay in dad rayd ah ay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawacba ay ka soo gaareen maadaama xabadaha iyo hubka la isku adeegsanayay ay ahaayeen kuwa aad u culus. kala duwan ee ciidamada Koonfur Galbeed ayaa la arkay iyagoo markaasi howlgallo oo dagaal xoog leh kula jira ciidamada markaasi ka soo horjeeda ee mucaaradka oo markaasi ku sugan guri ku yaala xaafadda Salaamay ee magaalada Baydhabo. dagaalkan wuxuu qaatay sidoo kale wazaaradda cadaaladda ka dhex jira howlkii shirka oo golaha wasiirada iyo dhaqaalaha magaalada Baydhabo la ka shiray waa ku sibar gaaytan intuu waa الباب كله كجراي كراسي وكوبيو شقيسنيسي ما يبغى هذا سوارجايتان magaalada Baydhabo marka kamida way ka dhamaado way ka leeyahay mid goobihi ugu muhiimsan ganacsiga magaalada maadaama magaalada xiisad aad u dadkii wasiirku kooyo badan kala duwan la soo adeegsanayay
taasi oo keentay in markaa ganacsigii galo wararka qaar ayaa sheegaya in saraakiil ka tirsan ciidamada koonfur galbeed Soomaaliya ay sheegeen in ay gacanta ku soo dhigeen ciidamo ka tirsan kuwa markaasi ka soo jeeday ay kula dagaalamayeen magaalada Baydhabo soo duubay magaalada ayaa muujinayay in ciidamo ka tirsan kuwa la dagaalamaya ciidamada Soomaaliya oo qaab walow annaga aysan si rasmi ah nooga xaqiijin mas-uuliyiintaasi sidoo kale wararka qaar waxay sheegayaan in ciidamo ka tirsan kuwa markaasi kasoo horjeeda Soomaaliya gaar ahaan sarkaalka lagu magacaabo Cabdiraxmaan Nishow ay ka baxsadeen gurigii uu dagaalka muddada dheer uu ka socday waxaana la sheegay in markaasi meel intaasi ka baxsan ay aadeen walow ilaa meel markaasi uu aaday maamulka koonfur galbeed Soomaaliya مسؤولين كترسن أو هاللي أو جهري وزير ورفاقين تي أفيان كمدحتوية كونفور قلبه وحيد مانتو ذا إشيجان إن كونفور قلبه الصومالية حتى إتهاي نبتون سلمر كان أي بسيطة كنور سي عادي وجن أحسن يعني صوت كي جديد كي دت كنا أي سوى ناقصن مركزي كوكال السودان wararka qaar waxay sheegayaan in markaasi mar walba laga cabsan qabo in dagaalku mar kale dib u qarxo inkastoo maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ay sheegayaan in ay soo afjareen howlgalladaasi Cabdiraxmaan Nishow sarkaalka hogaaminaya ciidamadaas ayaan la ogeyn ilaa hadda meel uu aaday walow markaasi laga yaabo meel ka baxsan magaalada Baydhabo in uu markaasi afka aadiyay sidoo kale wararka qaar waxa ay sheegayaan in maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ay wadaan sidii markaasi howlgallo ku aadan xaqiijinta iyo soo celinta amniga iyo kala dambeynta magaalada ay dib ugu soo celinayaan ay ka wadaan madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ku sugan magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baay sidoo kalena maalin dhaweed waxa magaalada Baydhabo gaaray gudoomiyihii guddiga doorashada koonfur galbeed iyo gudoomiyihii guddiga doorashooyinka Soomaaliya kaasi oo lagu waday in dhawaan laga daafuro magaalada Baydhabo ololaha doorashada qofii cod la sheegay in dad 38 kun oo ka badan reer koonfur galbeed oo ku nool magaalada Baydhabo ay iska diiwaan gelin codbixiyaashu loo daafuro si ay markaasi u doortaan tani ayaa inay saameyn ku yeelato maadaama magaalada ay haysad colaadeed aad u xoogan ay gashay taasina ay adag tahay in markaa si fudud maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ee guddiga doorashada ay ku dhaqan geliyaan waxaan sidoo kale wararka qaar ay sheegayaan in madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya uu aad uga cagajiidayo hirgelinta nidaamka doorashooyinka qof iyo codka taasni beddelkeedana uu hadda taasi oo laga dhadhansan karo dagaaladii labadii maalin soo dhaafay oo ay ka dhaceen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay dhaawacyadii iyo dadkii ku dhintay ayaa markaasi la geeyay isbitaalada gudaha magaalada Baydhabo muuqaalo laga soo duubay guriga uu deganaa wasiirka wasaaradda xoolaha Soomaaliya Xuseen Maxamed Galay oo ay bilaqaysanayaan dad shacab ah ama ay dad shacab ah galayaan isla markaana ka qaadanayaan alaab kala duwan kadib markii maamulka koonfur galbeed ciidamadiisa ay gudaha u galeen kadibna ay wateen ciidamadii halkaas ku sugnaa intii u suurta gashay kuwa kalena ay ka baxsadeen halka kuwa qaarna ay noqdeen kuwa dhintay iyo kuwa dhaawac ah dadka shacabka ayaa markaasi la arkay iyagoo alaabta kala duwan ee halkaas tiilay ay qaadanayaan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa laga yaabaa in xiisadani ay saameyn xoog leh ku yeelato isku socodka dadka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa wada dadaalo ku aadan sidii xiisada loo dejin lahaa saaxiibayaal dhageystayaal daawadayaal waxaan halkan ku soo gabagabeynaa qodobkii xisaab lahaana uga hadlaynay dagaaladii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Baydhabo wararkii ku soo kordha barnaamijyadeena soo socday ayaad kaga bogan doontaan janaalka Warcadda Media annagoo sidoo kale idiin soo gudbin doona warbixino kale la xiriira arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxbarashada iyo guud ahaan arrimaha bulshada anagoo Warcadda yeelin socodsiinayay toddobaadka intaan mar kale muuqaalka xiga dib ugu kulmi doona nabadgelyo